السلام عليكم guys kusoo dhawaada barnaamijkeena la talinta caafimaadka barnaamijkeena maanta waxaan uga hadlaynaa mowduuc aad u xasaasi badan mowduuc isku ma jiro waxaan ka hadlaynaa bariga cudurkan la yiraahdo typhoid maxaa la lahaa maxaa sababo iyo meeqo u qabsamaa intaan u guda galin ka hor mowduucayga waxaan idin ka codsanaynaa hada kanaalkayga ku cusub tihiin fadlan subscribe noo saar asxaabta jecel sheebaarka casharadeedan u share garee موضوعنا ما أنت وحاول هذلنا محل لها تايفود وحال لها وحصة تايفود كلمة تايفود وحكي ماذا أما صامالة سوية قانا تيفو وحكي ماذا وحصة بكتيريا اللي يقانا سالمونيلا بكتيريا اللي يقانا صوت وكترسن فملك اللي يقانا انتيرو بكتيريس يكترسن ته مركا سالمونيلا جرك وحكي ماذا راشين كان اللي يقانا raashinka loo yaqaan food spoilage oo la daadiya sababo marka raashinkaas food spoilage loo yaqaan mar alla markay cidi isticmaalaan ee aruuriyaan ee daadiyaan ama si kala daaw dhigno subaxiya maamada waxay karisay 3 saac amal raashin karisay waxa ka soo wareegatay 3 saac kale waxa isticmaalay 8 saac aan qadeen 3 saac raashin la karisay 8 saac aan ku qadeeyay oo waxa u dhaxeeya 5 saac oo difference u dhaxeeya 5 saacadood maadaama ay ka soo wareegtay raashinkayga wuxuu noqonaa inuu ka dhex dhashay waxa loo yaqaan food spoilage oo halaaba waxa ka dhex dhalanaya contaminated bacteria ka dhalanaysa waxa loo yaqaan marka salmonellosis loo yaqaan salmonellosis kaas marka wuxuu sameeynaa hadii aad raashinkaas isticmaashid inuu jirkaaga ku badanayo wuxuu sameeynaa marka jirkaaga calooshaada fadhiisto isla markaa wuxuu bilaabaa inuu dhiig blood stream ka xinjirta ku badiyo dhiigaaga oo noqdo dhiig aan dhaqaaqaynin calooshaada ay noqoto calool fadhiisatay calaamadaha lagu garto waxa kamid ah marka tiifooga inaanan stoolkii dhumaayo saxaradii la weynaa waxa kale oo imaanaya qofka inuu mantag dareemayo dhiigiisa xinjirta ku badanayo maskaxda xanuunayo calaamadahaas markay soo muuqdaan indicated waxa dareemaysaa inaad qofkan oo qabo tiifo uu qabaa marka tiifooga daawo ma leeyahay daawo waa leeyahay daawo waa loo qaadan karaa laakiin daawada ugu fiican ee tiifooga loo qaato waxa loo yaqaanaa in uu qofkan isticmaalo a lot of water 3 litir oo biyo maalinka isticmaashid uma baadin inaad qaadatid treatment of tifo waxa loo isticmaalo daawo ahaan tifo waxa loo isticmaalaa ciprofloxacin solution oo kale in la qaato marka hadaa tahay tifo patient ciprofloxacin solution wax ma ku taraayo ilaa mar walba dad faleeb isticmaashadaan same problemka ku laabanaysid oo prevention aadan lahayn ama quality control of food aadan la isticmaalaynin waxa ku imaanaya marka mar walba inuu ku soo laalaabto cudurkan typhoid ku soo laalaabto haduu qofka marka typhoidka oo ku soo laalaabto muddo 5 sano ka badan wuxuu isku bedelaysaa inuu ku noqdo hypertension ku noqonay dhiikar ku noqonay ilaa wixii dhiikar ku noqonay dhiig aduu xinjir ku bato oo wadniga garaaca dhiig fiican ay soo helin mar walba wuxuu noqonaa marka qofka inuu jirkiisa isbedelo oo gacan ama lug wax oo ka daciifo faraha ay oo ka dareemo jareenayo nerve problem oo maanayo calaamadaha dhiikarka ku bilaabanaya calaamadaha dhiikarka ku bilaawdo hadii oo problemka si laazimo heer wuxuu gaaraa oo qofkan dhiikarka uu ku dhasho muddooyin kadib laakiin hadii aad raashinka isticmaalkiisa yareysid oo raashin quantity ah qaadanaysa oo yaraado waxa asaalanaanaysa in cudurkan typhoid ka badbaadin typhoid waa ka badbaadaya laakiin dad tiraadin waxa arka kimida aan arka cuna sida waxyaabaha typhoidka aad u soo waxa kamid ah sida hilibka kale hada hilibka aad u isticmaashid oo kale cudurkan typhoid ka ma dhamaanayo waa ku jiray mar walba waxa ahaanay typhoid patient marka cudurkan cudur aad u halis badan waaye xaaladdu wuxuu gaarsiyaa inuu dhiikar oo jirkeena ugu bedelo waxa bacteria sababayso magac commercial name loo yaqaan jiro waxa loo yaqaan bacteremia waxa laga wadaa bacteria infected by blood bacteria dhiig ku dhacda loo yaqaan waana salmonellosis way bacteria hada ka sheekeynayna way marka calaamadaas uu leeyahay asaas loo daaweeyaa marka qof kasto salmonella qabo ma laga rabaa ama typhoid qabo hadoo typhoid patient aad waxa laga rabaa inaad maalin walba isticmaasho 3 litir oo biyo inaad iska ilaalisid heavy food raashinka aad iska ilaalisid si jirkaaga ugu badbaadido waxyaabahan oo problem ku keenayo sida waxaan problem ku keenaa waxa kamid ah dibko kale iyo raashinka muddooyin fara badan meel yaale wixii 11 saac ka dambeyn inaad isticmaashid heavy food waxa soo waxay ku keenaa inuu problem ku bato marka cashirkeena intaas oo nagu ogyahay in dhiirigeliya mowduuca isleeda oo in anfaca commentiga nagu reeb si aan idinkaga soo diyaarino clip aad u qurux badan oo idinkan ugu faa'iideysteen waana maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh